waa muuqaal laga dhex duubay gudaha gaarigii ay saarnaayeen xulka kooxda kubadda cagta ee JCCI kaasoo shalay galab qarax ku qabsaday magaalada Kismaayo xilli ay ku sii jeedeen garoonka kubadda cagta ee Wami Stadium oo laga daafurayay tartamo u dhaxeeya kooxaha ka ciyaara degmada Kismaayo. Qaraxa ayaana saameyn xooggan ku yeeshay kooxdan oo badankeed saarneed baska, waxaana ku dhintay 2 ciyaaryahan iyo darawalkii gaariga, halka tiro kale oo dhaawacyo ahna la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Kooxdii dhibta shalay gaartay ee JCCI ayaa ahayd koox ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee degmada Kismaayo, waxaana kooxdan horey u aasaasay Allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin, kaasoo isna sanad ka hor lagu dilay qarax. Macallin Cabdiqaadir Boo oo ah macallinka kooxda dhibtan haleeshay ayaa la hadlay TV-ga Universal. magacaygu waa Abdullah Abdullahi Maxamuud, waxaan ahaa macallinka tiimka JCCI oo shay masiibadu ku qabsatay. runtii waxaan ka tacsiyeynayaa ciyaartooydii dhibka qabsatay dhammaantood inta dhaawacmatay inta dhimatay. waxaan leeyahay samir iimaan anaga usii dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed ka wada baxeen. waxaan rabaa inaan ka qayb galno furitaanka tartanka. marka intaan dhexda sii soconay waxaan ugu dhacday masiibada ugu dhacday. dad xamil dhalinyaro oo meel fiican u socday ahaayeen. waxa iskaga dhacay masiibada iskaga dhacday. masiibada ku dhacdana waxaa waaye inaan la weynaada rajacuun. ilaahay waxaan ugu baryayaa inay kuwa dhintana uu jannada firdawsi ka waraabiyo, kuwa dhaawac noqotana caafimaad deg Allah u siiyo. runtii ciyaartooyda waxaa ka dhintay 2 nin baa ka dhintay, Cabdifataax iyo Yahanad iyo darawalka tiimka dhintay. waxaan dhaawaca 6 kala dhaawaca. 6 dhaawac waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu ilaahay caafimaad taam siiyo. Ehelada iyo asxaabta ciyaartooydii geeriyootay ayaa diraya fariimo murugo leh, waxaana si gaar ah looga deerinayaa xaalka caafimaad ee hooyada dhashay ciyaaryahan Cabdiwaaxid Maxamed Yuusuf, kaasi oo qaraxa dhaawac ka soo gaaray xalay u geeriyooday. ciyaaryahanka geeriyooda Allah u naxariistee ayaa hooyadiis u ahaa wiilka keliya ee ifka u joogo, waxaana xilligan laga soo deyrinayaa xaalka caafimaad ee hooyada, taasi oo ka murugootay markii ay maqashay warka ah inuu dhintay wiilkeedii oo ahaa garabka keliya ay ku tiirsan tahay. wiilka waxaa la yidhaahdaa Cabdiwaaxid Xuseen Yuusuf. hooyadii cid kaloo ay dhashay oo halka u jooga ma jira, isagaa noloshiisa iyo wixiisa u maarayn jiray. isagaa dad u ahaa, cid kale oo hadda ay haysatay ma jirin. muxuu ahaayey marka wiilku saasuu ahaa. dhallinyaradan isboortuu ka mid ahaa. markii kalena waa iska xamaalan jiray, dhulkiisuu iska shaqaysan jiray. marka maamadiina hadda waa basteedu hadda say noqon doonto ma naqaan. ilaa xalay wax miyirkeedu caadi ma ahayn meeshay taallay. marka kaasay hadda dad ka fiirsanayeen. marka wiilashii shalay dadkii qaraxu ku dhacay buu ku dhintay. garoonka kubadda cagta ee Wami Stadium oo ay shalay ciyaaryahanadan inta qaraxa uusan qabsan ay ku sii wajahnaayeen, waxaa shalay uu martigeliyey ciyaar u dhaxaysa 2 kooxood oo lagu daafuraya tartan loo qabanayo kooxaha ka dhisan degmada Kismaayo, waxaana tartankaasi daafuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. ciyaartaasi ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadalhayn badan, waxaana la kulannay mid ka mid ah kabtanadii 2 koox ee ciyaaray, kaasoo sheegay in shalay ay ku ciyaareen dareen aan wanaagsanayn. aniga horta waxaa ahay kabtanka kooxda kubadda cagta dekedaha, kumaana qanacsan